السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن سيدي أن هروي نقول بلان قاضي waxaan ka hadli doonaa maanta shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee iskugu yimaadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliyeed Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ninka hogaamiye kooxeedka SNMta markaan leeyahay hogaamiye kooxeedka SNMta waa iga run waayo ninkaas de wuxuu masilaa SNM ma masilo muxuu ahaa dadka waqooyiga shir kasta marka la qabanayo waa inaad isweydiisaa dadka ka soo qayb galayay maxay yihiin ayay masilaan dadka ay leeyihiin waan masilnaa ma masilaan madaxweyne Cabdilaahi Farmaajo isagoo madaxweyne dalka Soomaaliyeed Soomaalo dhan ayaana dooratay oo qabiil walba leh oo baarlamaanka Soomaaliyeed qabiil waliba uu ku jira faramka dadka u codeeyna waa loo yacda laga bilaabo ilaa iyo Kismaayo adduunkuna wuxuu aqoonsan yahay inuu yahay madaxweynihii sharcigii ee jamhuuriyadda Soomaaliyeed laakiin ninka la yiraahdo Muuse Biixi oo dhawaana ka hadli doono imika aan si faafahin doono waa nin askariya oo ciidamadii Soomaalida ku jiray waa dadkii jabhadaha noqday ee Itoobiya tagay ee dawladdii Mingisti Haile Mariam soo taageertay ninkaasi ma masili karaa dadka ku dhaqan awdal ninkaasi ma masili karaa dadka ku dhaqan Buuhoodle ama Cayn ma masili karaa dadka ku dhaqan Sool Sanaag ma masili karaa dad badan oo xitaa Ivan Barcajo ninkaas ma masili karaa masiirkii ummadahaas oo dhan ma oran karaa anaa wakiil ka ah waxaan ka hadlayaa madaxdii Soomaaliyeed masiirkooda ma oran karaa jawaabtu waa maya sababtuna maxay tahay waxa weeye hadiyo jeeraale gruubada SNMta waayo qabiil ma raba inaan idhaahdo waayo qabiil oo dhan ismooda raaci karo maanta laysa gruubada SNMta xitaa idaacadaha dheeraadhan ka maqlaysiin mid waliba oo dafirayo in xasuuq kale meelna Soomaali ka dhacay dafirayo ayaa hoggaan ninkii horjoogaha u ahaa lagala hadlayaa arrimahan Soomaaliya haddii aan initial xasuuqyada ka dhacay gobolka Awdal xasuuq ba'an loo nixin loo aabayeelin dadka ayaa ka dhacay magaalada Boorama iyo magaalada Dila iyo xeebaha Awdal oo dhan Muqdisho waxa ka dhacay xasuuq baa ka dhacay Muqdisho oo 91kii wixii ka dhacay wada weydeen ka horna tacdiyaal aad fara badan baa ka dhacay 90kina dib badan baa ka jirtay oo ka dhacday marka dad fara badan baa ku geeriyo intii dagaal ay socdeen ilaa maanta inta dad ee xamar ku dhimatay Muqdisho ku dhimatay de lama tirin karo dadkaas iyagu deesma qof walba naftiisa ma dilin ee waxa dilay qorigii qaranka Soomaaliyeed lahaa ama xaq kooxay ha qaato ama cid doonay ha qaato qofka xitaa dilay waa dad qarankii Soomaali wax baray ummadda baydhaba ku dhaqan 91kii iyo 92kii ilaa xitaa bari dambe dhibaato weyn baa soo gaadhay dad aad u fara badan waa laga xasuuqay waan laga laayay Kismaayo laftigeeda waa saas oo kale Garbahaar waa saas oo kale Gaalkacyo waa sidaas oo kale xirooyinkii qaxootiga ee ka mid ahaayeen Jaalaqsi ka mid ahaayeen xirooyinkii Hargeysa ka mid ahaayeen Boorama ku yimaadeen dadkii ku jiray ee ka yimid Soomaali galbeed iyo ka laftigeeda ma la isweydiiyay xagee ku dambeeyay dadkaas iyo wixii ku dhacay markii dagaalada sokay bilaabmeen xooga u bilaabmeen waxaan u jeedaa Muqdisho dagaalada aad uga bilaabmeen waxaan joogay magaalada Montreal jirid marka ka soo bixi jirtay magaalada Montreal ayaa hadii goor lagu qori jiray wixii Soomaaliya ka dhacay marka waxaan xustaa Jaalaqsi ninkii wariyaha isagoo ka warramayo dadkii oo la laynayo oo rasaas ka yaacayo oo wabiga ku daadanaya oo yaxaaskii yaxaaskii naf bideen marka Soomaali waxa ka dhacday meel walba waxaas ka dhacay ceerigaa bay ka dhacday oo Sanaag bay ka dhacday oo Soomaali meel kasta ka dhacday marka waa qalad in dad gaarihi ay yiraahdeen gaar baa la noo xasuuqay ay yiraahdeen oo gaar u sheegtaan xasuuq gaar iyadoo Soomaali ilaa 60kii ilaa maanta Soomaali dib ay ku wada socotay dawladdii waddanka xukumaysay dawlad askari ahayd oo Soomaalo dhan wada cadaadinaysay oo xukunkii ka wada qabsatay
soomaalidu dhanna ku jirto waxaan niga soo qaadaya masal dowladihii sibilku markay joogeen shicibka ahaa joogeen 1969 ka horreeyey hadii gore wasaaradu way koobnaayeen in qabaylkana meelaha ama laba qof ama hal baa lagaga soo dari jiray siyaad barre dadkan cabanayay ee sanamta markuu qarsaday wuxuu ka dhigay wasiirro miidhan buu ku tahay odhan maayo dee anuu waa qalad odhan maayo oo dee wasiirra qof walba soomaali xaq buu leeyahay xitaa hadday doonaan isku qabiil ha noqdaan wasiirru ku tahay waxaa ka mid ahaa raggii dee waddanka xukumi jiray ee waagaa joogay cumar carte dowladdii shicibka yuu ku jiray hargeysa laga soo doortay wuxuu ahaa qofka qura ee dowladihii shicibka ku jiray ee siyaad barre taageeray ayuu ahaa isagoo hargeysa laga soo doortay oo doorasho ku yimid qofkii inqilaabay ayuu taageeray halka ay jireen dad mareexaana oo ku jiray baarlamanka soomaalida uu siyaad barre xidhay oo dee nin la odhan jiray aadan loo la odhan jiray magaciisuna ahaa maranaya wuu xidhnaan jiray muddo dheer buu xidhnaan jiray siyaad barraana xidhay mareexaan buuna ahaa halka cumar carte oo la soo doortay oo isagii siyaad barre taageeray isagoo markaa yani xukun askari yani waba qalad dee ninka ummaddan yani constitutionkii oo dhan buu ku ciyaaray markaa ninkaasi doorashadii iyo habkii lagu soo doortay iyo wixii oo dhan buu buriyey oo yani gadaalna waan sheegi doona wuxuu sameeyey marka dadku markay leeyihiin hargeysa ka hadlayaan ay leeyihiin qarankii soomaaliyeed baa na xasuuqay qarankan ka mid bay ahaayeen madaxda ugu sarreysa ee ugu badan bay ku lahayd haddii aan nii akhriyo magacyadooda liiska halkan ciiddaa ininkunaad kusoo daraysiin inta kale waxa weeye ra-iisul wasaare ku-xigeen bay ka ahayn waddanka ismaaciil cali aw wasiyad barri iyo dadkii ku xigay buu ahaa jaamac maxamed qaali boliiska haysan jiray ismaaciil axmed ismaaciil jeelashu haysan jiray ibraahim meegaag samatar wasiiruu noqday siyaad barre khudbaduu u qori jiray inaan la xawsin la odhan jiray isna wasiir buu noqday oo dadkii waddanka xukumayay buu ahaa siiraanyu dadkii waddanka xukumayay buu ahaa ilaa muddo 10 sano inta siyaad barre joogay cumar carte laftigiisu khaariji buu ahaan jiray waddanka khaarijiga soomaaliya isagaa masiri jiray ina xawaadna madar siyaad barre xitaa markuu sii dhacayay markii ugu dambaysa xitaa wuxuu ahaa ra-iisul wasaare ahaa cumar carte markuu siyaad barre sii dhacay xitaa isna ra-iisul wasaare ahaa marka laba shay baa ni garab dhigi isukiin garab dhigi markaad tidhaahdo dee qaran baa ilaayay adigiina aad ka mid tahay ciidankii aad ku jirto wasiiradii aad ku jirto wixii oo dhan aad ka mid tahay soomaali way kaa dhegaysan haddii dadkaagii adiga kaa dhashay aad maxkamad soo taagto oo tidhaahdo dadkani dowladdaasay ku jireen oo dembi bay galeen ile qarankay ka mid ahaayeen laysa dad kuwii dabeetana iyaga aad waxba odhan weydo oo dee ku kala joogaan dadka kalena ma yeediin karti dadka kalena maxay kurun bay lamid ahayn meel bay dooni ku wada jireen wax gaar oo sameeyeen ma jirto siyaad barre la taliye u ahaayeen wasiirre u ahaayeen ciidankay ugu jireen booliiskay ugu jireen nabad sugidday ugu jireen oo basaasintay u ahaayeen wax walba u ahaayeen example kale siinaya waxa dhacday 1970 bishii April 1970 ayaa waxa dhacday nin dowladdii shicibka ee Soomaalida waagii hore jeelka ku jiray markaa oo la masabiday oo nin gada bulsi ahaa oo makadheer ahaa sidii walaashiiba ayaa jeelka hargeysa ku jireen markii askartii ay timid waddanka ay qabsatay qofkii ugu horreeyey la toogtay ee la dilay ninkaasuu ahaa waxaa lagu toogtay buurta inaan naxar hoosteeda ee magaalada hargeysa waxagii dariiqa waayadii hore laga soo geli jiray hargeysa keeni jirta ma garanaayo laakiin buurta inaan naxar baa loohan jiray waxgaa galbeedka hargeysa kaga beegneed buurta hoosteeda lagu dilay maalintaas dadkii hargeysa joogoo dhan odhan maayo markaa dee anugu kolley dadkan afkaarta qalada qof baa geliyay kolley oo shicibkan u eedayn maayo laakiin dadkii shicibka iyo dadkii magaalada hargeysa joogoo dhan durmaan bay soo qaateen way mashxaradayeen ninkaa la dilaayo ee gardarrada lagu dilaayo ee ilaa intuu dhimanayay dadkii la joogay ay sheegeen lahaa kolba gardarraa la igu dilaya waa la iga gardaran yahay anuu etoobiya basaas uma ahayn waxna uma ahayn qalad baa la igu dilaya ninkii lahaa hargeysoo dhan baa u mashxaradaysa haddii beentay la moodayana radio muqdisho iyo idaacadda soomaaliyeed waa laga heli arkiifyada wixii oo kaydsan wax la baadho waa la heli qofkii markaa aniga hadhuu yidhahdo beentaa dadkii joogayna dee waba sheegi doonaan oo markhaati bay ka yihiin marka isla ninkaa qofkaa u mashxaradayay
qofka muxuu lahaa basaas u tahay Ethiopia waxa lagu soo eedeeyay waraaqa laga helay baa la yidhi muxuu ahaa wala lahaa waa basaas Ethiopian oo Ethiopia basaas u ahaa dadkii markaas oo mashxaraday bal madaxdoodii qabiilahan xukumayay maxay sameeyeen يكي مركا قرن كمثيل أيه لها محاني كانوا واقفين وابس أو أساسا قدلني دلتنا لو مدهرة مقتل يعني المودبة فرحض يرهين الموديسي قبيلهان ضد باقلية وحال نقف كليه هي وغير كليه هي وقبيلهان لو مش حرو يعني قف قبيل كله الدلال تقول نما أوكي ضدكي وحاسبين محي شوفين يكي لفت وودي ضدك أمد الصوماليات سأقول لينا يقف كم سبيدا يمحوها بساس باطة وأنا حسوست محوها بورم أنا كو عرضو يرير مقالة بورم 1966 اللي حين أنا كو عرضو يرير هي بندو اللي بسوق بيجري رجع هايستنا وحاها رجع جسكو يمدي بلا كو يمدي ضدك وحي حل جري وحي دونا بيكو سنين جري ويلين جري حتى أنن أركيبا لي مركا أوكي يور رمي جري مي ضمبي وعيساها الله نحرسته على حجوب بالونجري ننبورها ولي جيبا سو قولك أوضل ولي حاجة سوكة محوها بور ميبون بحيسة الميل كله بيقولون ضدك كذا بورسية ميل ولي بس كلا سكر وعلى حجوب ودك حجوب بوها وضدك كلا سكر والله جعله وتكون قاعد وقويين وحري لنا محوها ديسية بور مي لنا وحبو أركي أي حاجة سمينين وديلين يكاديلين ضدك نوك صوت ضد بقى وما كده مع صوتي ولا لسه أورنجري ضدك كاسدلين كشيء كنجري وحوي إني حاجة بهتو نحن حاجة بهتو الله نحرسه والجيد أكتير سقط لقى يتوب يدك أنا والجيد بو يلدي واحد الواب بصاص صوت تنصرين كله بو حمر إيو بربر إيو مدارية وحدنا الدم بيقوين قال dadkii na lahaa dadkaas waa basaasiin ee dadka waaga ku tuumi jiray wayna daweydeen mooyaane gobolkan awdal in oran jiray Silciye Boorama district waxa loo hoos keenay in muxuu ahaa markii hore dadku deeqo xor bay ahayd oo gobol xor waxa waligiina Hargeysa oo ku jir Hargeysa loo hoos keenay markii dambe dadka xukuumadda Hargeysa ka iman jireen booliis iyo walba dadkii tacaddi xoog ku sameyn jiray waan yaraantii aan wax xasuusto on garanayo ay ku sameyn jireen in marka dadkana waxa ku masabidayeen waa basaaskani waa hebel waa balaayo dadkii waa yani bando magaalada Booramo oo meel kale baan bando ahayn bando lagu soo rogi jiray dadkii waxa inoo shirkinay ayaa intoo socdeen أدي سببتني ومنجست حيل مريم وأها نك وعدوي وينا يدلك إثيوبيا يدلك الصومالية بقى إن كسوقاتي محوها وحول بكسوقات هو بكسوقاتي إن توبر كسوقاتي إن وحولنا دبتنا أمدي كسمي ومركي تنبي كسمي قفك شالك ولا هوا بساس كان وام حي واحد لها وهذا نتوس بدلي حقي كلتهجي oo dadkii haddana muqtay marka ku soo hogaamiyay ciidamadii muxuu Ethioopianka ee marka Mingista Haile Mariam Mingista Haile Mariam hadda niga sheekeeyo wuxuu ahaa nin faashista wuxuu ahaa dictator weyn dadka Ethioopiana wuxuu u geystay dambida ugu weyn ku kale dadka Ethiopia Addis Ababa intuu dadka xabad lagu dhifto oo la dilo waqtigu haysay muxuu ahaa 27 intuu dadka la dilo Ethiopianka laftigooda tulaayo ayaa qofka loo oranayay lacagta bixi lacagtii lagu dilay qisaastii lagu diray lacagta bixi ayaa loo oranayay yani nin faashisto oo noocaas soo maray geeska Afrika ma soo marin cidina qofka la mid ah wuxuu magaalada Booramo wada weydeen wuxuu diyaarado intuu ku duqeeyay carruurtii iyo muxuu ahaa dadkii oo dhan yani kalaasiyad dhan la waayay oo dhowr iyo 30 carruur iyo dadkii kale ahayd meelaha ka agdhawaa diyaaradiisu mar walba uu iman jiray wax duqeyn jiray muxuu ahaa gobolka awdal magaalo ina leeynin ma jirto waxa weeye ninkaas faashistiga ah ee Mingista Haile Mariam loo oran jiray ugaaskii gada buursiga jigjigu ku dilay islaantiisina uu dilay carruurtiisina uu laayay magaalada jigjiga uu ku laayay marka qofka oranaya ee qiil ka dhiganaya muxuu ahaa gada buursiga muxuu jabhad dan oo horiya la yiraahdo la dagaalamaysa oo maanta dee faraha lama laabanay wala iska celinay ninka faashistiga ee ummadda u galay ninkaas naxariis Ethiopia uma hayn Soomaalina uu lahayn marka shalay ninkii kula ahaa dadka Booramo waa basaasin oo Ethiopia u basaasaan oo 60dii oo waxa beenta fidinayay iyo haddana markii dambe xagan ku tagay indi maantana iska dhigaya muxuu ahaa iska dhigaya qof nadiif ka ah waxa soo nadiif ka ah anigu daraarin kale waxay leeyihiin muxuu ahaa qaran baan lahayn okay
أنا شخصيا سياد بري أنتو جوبي لبا scholarship aan ka helay oo dibadda markaan high school ka baxay waxa la diray dalka Cuba la diray in muxuu ahaa markii aan jaamacadii Cuba la islaayeen Soomaaliya ku soo noqonay dibadda jaamacadii Soomaalida ay qaadatay in sanad kadibna muxuu ahaa waxa la diray dalka Ingiriiska waxbarasho la diray marka siyad barri intuu joogay laba scholarship aan ka helay haddana iyadoo taa ay tahay oo laba scholarship ka helay anoo xukunka aan military aan jecel iyo dalka soo horjeed oo macaaridi jiray on mudaharada ku dhigi jiray markaan Canada tagay sideetanadii lixdii aan galnay Canada aan galnay aan mudaharada ku dhigi jiray on ka soo horjeesan jiray marka horta marka waa raas waxaan leeyahay Allah naxariiso waayo waxaan moodayay idaan waxaan ku dhaliilayay dambiye ka waaweyn ayaa la geystay oo yimiday aan waxaan ku dhaliilayay yani waxyaalo kullay askarta inay xukun qabsadaan in askari wadan ka taliso in muxuu ahaa qof aan la doorin wadan ka taliyo in muxuu ahaa maadaama uu qof kale la doorin hadii wax uu qalad sameeyaan dad qaldan waayo laba dooran ma marka waxyaalaha soo kale aan ku dhaliilay laysa wax qabad deesiyad baraan marna ku dhaliilay warshadaha xadaaf wadan ka dhisay waxyaalo badan oo ku qabtay wadan oo ka dhisay laysa qaladaad faram iyo dambiyaal badan oo sameeyay iyo kooxdiisii oo dhan marka aan waxaan leeyahay Allah naxariisto waan iska cafinaya in anigu darto kale marka haddii aad qaranka Soomaaliyeed ka cadanaysay oo waxa uu dhacayna aan kula waban ka soo horjeedayba mudaharadan ka dhigay sawirradooda ay ugu jiraan anoo mudaharad dhigay oo ka soo horjeeda haddii aad markaa leedahay qaran baa waxii geystay waana run oo dee shirka Hargeysa 1988kii markii sanadku soo gashay dowladdii Soomaaliya way la dagaalantay shicibkii halkaa joogay dib weyn baa soo gaadhay dad badan baa ku dhintay qaxootigii halkaa joogay ee Soomaaliyeed Soomaali galbeedka indanaya kan dib weyn baa soo gaadhay laysa ma iyakuna dad badan iyo magaalada Hargeysa ku xasuuqeen oo ku laayeen oo Muuse Biixiga maanta lala hadlayaa muxuu ahaa in Xasan Aboolin la oran jiray Allah naxariisto iskuuladii camudi la dhigan jiray oo igu horeeyay oo dadkan ciyaartooyga ugu caansan baa ahaa boqooyiga ahaa aad iyo aad u fiican oo akhlaaq fiican in cilmi jiro in caatay giddi wood Muuse Biixi baa dilay oo Hargeysa ku dilay 88 isaga laftigiisa dadkuna ay sheegayeen awalna looga markhaatiyo badan in ka soo baxay inuu soo dilay marka ninka noocaas in la yiraahdo waqooyigii uu misilay ama awdal uu misilay wax xaraan weyn umad Soomaaliyeed dambi ma ka galaysa dambigaasna wuxuu noqonayaa dambi ka sii daran dambiyadii hore ee ummadda dadka awdal laga galay in maanta maadaama aan ka hadlayo awdal kullay buu iyo sanaag iyo kullay dadkii u dhashanay iyaguna waxay ka sheekeyn doonaan wixii dhulka ka dhacay iyagana dambiyada badan baa laga galay iyagana ka sheekeyn doonaan oo afkoodii kullay ku hadlay marka ninka sidaas marka muxuu ahaa ummadda u geysay tacadiga intaas oo qof dilay gacanta dhiiga ku wata ilkaha dhiiga ku wata indhaha dhiiga ku wata burcaba bi ilowdo yahay burcaba bi 95 oo ummad oo dhan ogta ninbaa wuxuu yiri mar soo maray magaalada Burco kadib muxuu ahaa markii ay dagaalada 95 ka dhacay ku magaalada u burburtay weligii ma arag siyad barnaamij waxa dimiyay muxuu ahaa مصبيح محمد كاين كما تقولي يعني تكاس الدنيا اسال انت هذا اسكو شيغا يي markoo dhaqaale kaleena ya dunya midda kale aan ugu 1991 kub iyo 9 February 4 magaalada Dilaa la soo galay waa la xasuuqay waxa la soo galay Boorama la galay waa la xasuuqay dadkii xitaa dukaanadoodii gaariyadoodii iyo alaabta xitaa lagu soo gurtay ciidankii minka sanad la socdo soo galay way laba ciidan baa soo galay waa runtii الشيخ حسن ده يبقى الله نحسه بيسوري إن أفكر بقلد الشيخ حسن نقول يهاي إن بيسور بور موجودة ونكاد تبدأ أوكرود إنت نوي الشيء وين أفكر الله نحسه لا أفكر وضع بيسور بتقفز نيجي الشيء كي أفكاسي الله نحسه من عيسى خالد مقارن معي ليس حويا في الشيء إن أي عيدنا الصوق على عيدنا دل الصوق علي يسلا عيدنا كاسمك ودل الصوق علي ciidan kale oo ka soo dhacay muxaabari awlabteeda oo Ethiopian iyo muxuu SNM kale marka Boorman soo soo galay aakhirkiina dadka si xun u galay marka wax weey ka hor maxaa jiray wiig ka hor magaalada Muqdisho Umar Arti Qaalib in idaacadii Muqdisho ka hadlay wuxuu yiri gobolada waqooyi SNM isku dhiiba qoriga u dhiiba gobolada koonfureed USC-da qoriga u dhiiba ani maxay tahay qarankii Soomaaliyeed wayo SNM-tu marka aw siyad bar dhacay gobolada waqooyiga meel lama haysan runtii marka idaacada laga hadlay ee leeydi qarankii Soomaaliyeed oo yiri
isagoo cumar cabdiqaali marka qarankii soomaalida uu masiixa qarankii soomaalida magaciisu ku hadlaya markuu leeyahay ciidanka soomaaliyeed ha isku dhiibaan snmtana qarankii soomaaliyeed magaciisu ku hadlaya marka ayaa hadlaya marka haddaan qabiil ahaan eegno waxaa hadlaya nin isaaqa afka waan ku dhiftiyo marka ayaa hadlaya oo qarankii soomaaliya isagoo markaa halkii ugu sarreysay jooga meeshii ugu sarreysuu jooga oo yani ugu sarreysuu jooga wuxuuna leeyahay dadka waqooyiga jooga oo dhani snmta qoryaha ha u dhiibaan iyo hubkii soomaaliya askartii soomaali ee joogtay hargeysa joogtay awdal joogtay meel walba joogtay way kala yaaceen hubkii siduu u dhan yahay snmta buu gacanta u galay marka maxaa qarankii soomaaliyeed awooddiisii iyo baaxaddiisii iyo wuxuu lahaa oo dhani markaa gacanta wuxuu u galay snmt buu galay marka iyakiiba qarankii soomaaliyed markaa masilaayay waa heerkii ugu sarreeyey joogaa hubkii oo dhanna way haystaan marka qarankii soomaaliyeedna cumar cabtaa masilayo heerkii ugu sarreeyey jooga maxay leegsi hubka ku sameeyeen haddaba hubkii maxay ku sameeyeen hubkii waxaa kula soo baxeen qabaa'ilkii jaabkooda wadawanayaa kule booramay ku xasuuqeen weliba u soo kaxaysteen muxuu ahaa minkasta u soo kaxaysteen oo ku baabiyeen ummadii oo ku masaxeen dadkii xeebaha joogo dhan bay laayeen oo ku masaxeen wixii ummad joogtay canfar iyo joogtay muxuu ahaa iyo oroomo joogtay meel ay mareen baa laga dadkii xerooyinka qaxootiga ku jiray ee joogay boorama joogay xagee mareen dadkii maxaa ku dhacay ummaddii kale boorama maxaa ku dhacay yani gefka iyo dembiga dadkaa loo geystay maxaa ka weyn mar isla markaa ay dadkaa laynayaan isla u galayaan dowladdii soomaaliyeed baa markaa snmta taageeraysa waayo cali mahdi iyo cumar cabtaa jooga xamar dowladdii jabuuti oo xasan dowlada aad toos u taageeraysa dowladdii mingisto ee etoobiya yani mingisto oo etoobiya masilayay quwaddii ay lahayd oo dhan ba iyakuna taageerayso daba taagna marka maxay masilayeen marka waxa weeyaan waxay ahaayeen awood waxay heleen siyaasi ahaan ay muxuuha ciidan ahaan wax walba dadkii kale ku xogood oo qaranka heerka ugu sarreeyay iyo taagan yihiin marka iyakii marka siyaad barre waa kuwan ku eedaynaya ilaahay qarankii soomaaliyed baana laayay iyagoo weliba ku jire iyagoo qarankii soomaaliyed masilaaya hubkii soomaaliyeed iyo awooddii soomaaliyeed helay iyagu soomaaliyed ma u naxeen dadkii ma u naxeen ma yidhahdeen dadkan waa dad shecel marka maxay ku kala duwan tahay siyaad barre markuu iyagu leynayay iyo markii malihi markaa dad la laayo waa qalab yani waa sax marna mali waa qalab qof bilaadan la dilo maxay ku kala duwan tahay siyaad barre inuu iyakii markaa uu la dagaalamay markay hargeysa soo galeen iyo iyakii markay hubkii soomaali oo dhan gacanta ku heleen oo qarankii soomaaliyeed uu siiyey hadiyad u siiyey oo weliba etoobiyaan ay wataan ay ummaddii xasuuqeen maxay ku kala duwan yihiin iyakii markaa yani dacwaddan ay leeyihiin muxuu ahaa weliba ay dafirayaan maalmahan aan dhegaysanay oo qaarkood leeyihiin xasuuq ma dhicin ma dhicin yacda moodo muxuu ahaa ay wax yaqsi qaarkood ku hadlayaan arrimahan waxaasoo dhan aan ugu hadlayna maanta waa sidaa markaan dhegaysta dad noocaas soo hadlayo aan dhegaysta haddii aad tahay muxuu ahaa qof bini'aadan haddii aad tahay qof damiirna ama qof siyaasi waxa weye meel walba qaladka ka dhaca waanaad sheegto haddii ummad lagu tacadiyo lalaay waa inaad sheegto ummado kale haddii lalaay waa inaad sheegto waxba ha qarin haddii kale dee waxaa waa been anigu waxaan qabaa marka soomaali ay hor imanayso jamhuuriyadda soomaaliya hor imanayso nin taariikhdiisu noocaata tahay waxa weeyaan propaganda loo sameynaya waayo marka horeba xasuuqan ilan soomaali way iscafin kartaa soomaali si kastoo isku laystay way garnaqsan kartaa soomaali si kastoo iska iloobi kartaa waxaasoo dhan laakiinse waxa weeye qof meel u socda oo raba muxuu ahaa ummad intuu xoog ku qabsaday inuu dadka afduubo oo meelo kale ula kaco oo waxyaalo beryo hore laga tago somaliland la yidhaahda iyo oo moogta ingiriis noo keenay dadkii magaca dib loogu soo cesho qof rabaa in la buunbuuniyo oo isagii laga dhigo inuu ummadoo dhan nasilo gef weeye gef bay noqotay ummadoo dhanna gef bay kutay waana dembi anigu soomaali waxaan leeyahay way heshiin kartaa soomaali waxuu wada qabsan kartaa soomaali way iscafin kartaa soomaali waddanka oo dhan bay dhisan kartaa hays waxa weeye qofka dembiyada ugu waaweyn ummadda ka galay dadkan awdal ku dhaqan magaalada boorama iyo dee harriyaheeda ilaa siila ilaa loo yacdo dadka calankii soomaaliyeed ninkuma dejin qof qurahoo reer awdal oo calanka soomaaliyeed dejiyey ma jiro calanka soomaaliyeed snmt baa dejisay iyo mingistaa dejisay sababta weyna u dejiyeenna waxa weeye waxay ka anfiriireen muxuu ahaa khayraadka ka soo baxay waddanka soomaalida
waddanka Soomaalida oo markaa isagu mingista ka baqayay ama wadano badan ay ka baqayeen Soomaalida dadka ka soo baxay in muxuu ahaa Soomaaliya noqoto quwad cajiiba ay noqoto oo geeska Afrika wuxuu adduunka dhan ku kaway waxa way markii Allah naxariisiyo baraw dhacay shirkado badan baa waddanka yimid oo 8 sano qaarkood petrol baariyay gobolka awdal shirkadii Chevron baa ka baadhaysay oran jiray gobolka Sool Konoko iyo ka baadhaysay petrolka gobolladan Burco ilaa iyo Sanaag area soo dhan amoka ka baadhaysay shirkadii oran jiray Pectin iyo ka baadhaysay Boosaaso ilaa Muqdisho shirkada Canadian ayaa joogay maxaa baraawo kismaayo shirkada ayaa joogay ilaa muddina la baadhay Soomaaliya waxa la rabay in petrol laga soo saaro yalla qoray dii markaa uu petrolka soo bixi lahayn Soomaaliya waxay noqon lahayd waddanada ugu cajiibsan adduunka maanta aan la dagaalamo dhaceen civil war ma dhaceen Soomaaliya isma leeysan laakiin dadkii waxa soo dhan arkay ee ku hortagay ee inaku Soomaaliya waxa weey wala inaga tacliin badan yahay wala inaga aqoon badan yahay waddanadu waxay leeyihiin waxa strategic plan bilay konta sano boqolka sano soo socda marka dabinka Soomaaliya rabay in lagu baabiyo ayuu iyo jabhadii dhex kale iyo ku juhala wax goorhay in SNMtana ha aqligoodii oo dhan ku koobmay iyo ku nightmare ku noqday awdal baa xora oo gobol awdal la jira in gobol Sool la jira gobol Sanaag la jira waxa weey 1960 goboladaas oo sida u wada kala xora ayay dawladii Soomaalida shicibkii Hargeysa hoos keeneen qaarna Burco hoos keeneen marka nidaamka qofku ku fikiraya oo yani aqligoodu ku fikiraya oo isleeyahay in mar labaad lagu hoos keeno ama waddan kale noqo oo waxaan oo dhan yeelaa ama in gobolkan awdal khayraad ku jira qaado ama gobolka oo gobolkan noqon lahaa lagu Hargeysa hoos keeno kadibna Burco hoos keeno adigu dhulka oo dhanba cigaal inta u xidhato noqon muxuu ahaa jamhuuriyaddii qabyaaladda hebel loo leeyahay yani aqligu waa saas weey ما هلا عقل قروب مثلا خيرات ومضى كتسمعيه كجرا لا لو يعد كجرا ومضى وضلها ومضى الصومالي ظاهران عد بترول قارو يلان كرت قبيل بترول عد بترول قارو ما يلان كرو غور معدن كرنا قبيل قارو ما يلان كرو وخيرات ومضى ودك دحي وخيرات ومضى لو تلقى إن بان لو سميو إن دكذا لو سميو إن إيردور لو سميو إن درجة لو سميو إن عسبيتال لو سميو إن مساكين لو طريقه إن دليرت wax lagu baro in dhalinyarta jaamacada loogu sameeyo in dhalinyarta loogu dhiso jaamacadaha ugu waaweyn si adduunka ugu soo kordhiya ways qofka ku fikiraya aqligiisa uu dhaafilay reer hebel qabsiyo reer hebel qabso oo reer hebel ciyaal soo xidho waa wax ka garaad mid waxaan leeyahay Soomaali in waxaan waafiyo gruupka nasan Norwegian Soomaaliya wax la yiraahdo ma jirto waa been dawladda Soomaaliyeed waxa weey dadkan awdal degan haday u heelinayso ama waqooyi ay leedahay cudur daaqan siinaya الوغوي وحويا لكن اللي عذر دار ضل السينية وأبولوجي ضل السينية فيها أبولوجي أنا السينية أبولوجي أنا السينية وين لغو سيل عرضة بعضي وذكره هنجرتي عالمي انترناشنال دوك هنجرتي إن ذكر لك اللي هو إنها على الشيخ لا إنها إن لو يعدل لك أبو رمها إنها فري زون أو انترناشنال إن بولا من لك سميه يقرأ هو على السينية الدوكا كاسا أبولوجي نقطة إن لا أسخر لك سميه إيربورت وين انترناشنال كاسا بولش ونقوناي كوغوي هذا waxaa uu noqonay ilaas camad laga sameeyo boodada madaarada waaweyn ee ku qarsan kaasa uu noqonay waxa polish waxa uu noqonay polish qaladkii jamhuuriyadda Soomaaliya gashay ay tii hubka u diiba oo maxaa SNMta ay tii inay ka noqoto oo ciidana u qorto gobolka awd ciidana u qorto maxaa in maxaa soo ay u qorto maxaa Sanaag ay u qorto tugde ciidamada Soomaaliyada ay u qorto oo caalamka maanta dadka dulba banay المساكين اللي قدروا يدركوا اللي وحالفين نمحوها كرامدو دي اللي قبي اشرفتو دي اللي وعياري انك خرطوا غلط كي قفتي خرق سوماليا وقالي ودب قلابتو او حدو عذر دارنا او ابولوجي بخينايو dadka hal yiri muxuu lagu laayay magaca Soomaaliyeed lagu dilay ee la yiri SNM taqriir u diiba ciidanka Soomaaliyeed lagu yiri in gifkaas xulay oo Soomaaliyada soo celiso ما هاي اللي يراهض مثل كونفري وقوي قالوا حاجوني يا إن كم كلا لو حاجوني يا إن مثل هديك اللي هاي مثلها سومالان اللي هي سومالان السنة توخليا أيا سومالان فكا قف كيش يكت السنة هي سومالان فكا كلوا سومالي دي وقوي اللي هي تذكر دي وقوي مقع سنتر وقوي كونفري وقوي وحمر بقوي
واجهه ليه ليس dadka Soomaali wadadooda walaala waana dad wada waxa isku wada mid marka anu waxaan la soo taagana anu Soomaali baan ahay weligeena Soomaali baan ahay laysa mid aqbali maayo illa igu dhaahdo waxa awdal ma jirto ama wadanka kama mid noqon doonto ma muusul bixida masila ma kala kama muusul bixina masilo asamiyoon masisho dadka guursiga ama ciisaha ee gobolka awdal ku dhaqan intaas oo dhan waxay sugayeen in qaran Soomaaliyeed abuurmo iyo sugayeen anu shakhsi ahaan waxaan ka qayb galay maxaa shirkii Djibouti 2000 waan ka qayb galay in maxaa dul Soomaali lagu dhisay shirkii kale ee muxuu ahaa in milgaarka lagaga baxayna dawladdu dambeysay waan ku jiray labadii jeer marka qaran Soomaali dib loo soo celinay waan ka qayb galay waxaan uga qayb galay qaranka Soomaalidu soo noqday rabaa in cid walba Soomaali faa'iido iyo ku jirtana gobolka aan ka dhashay ee awdal ahaa marka marna aqbali maayo muxuu ahaa yani shacab kastoo Soomaali keento awdal gobol ma noqonayo way gobolka awdal dadka iyaga raba dadka sameystan muxuu ahaa ilaaha wadanka ka midna lays dawlad iyo dad kor kaga keeno wuxuu hore gobol ma noqon karto qof aan ku wax ma noqon karto wax ma tihi dekada ma yeelan karto airport ma yeelan karto waa waxyaalo dadku isku yeesayaan maal yacni wax weey ummadda Soomaaliyeed dadkii wax u tiri lahaa oo dhan ayna fahamsaniin dadka awdal waa dadka firfircoon waa dadka wanaagsan waa dadka Soomaalinimada qaba waxay nitari kara Soomaali kara dadka muxuu ahaa meel walba Soomaali joogi ummadda wax ku soo kordhin kara dadkan la yiraahdo muxuu ahaa dadkan la yiraahdo mutawabiyada dhexdooda degan ama jareer weynaba dadkii baraway asalka ahaan jiray ee bulsho ku noolaan jiray waa dadka Soomaali haddii la caawin lahaa farsamo yaqaanka cid walba wax soo kordhin lahaa ee muqtadu yani aqal si u leeyihiin wayo qofka birta tumay waa aqal u leeyahay waa duukan qofka birta tumaba ma duuka xukuma ee moqta warshadaha sameeya ee baraha sameeya adduunka xukuma ma qofka jaahilkii wax ma qofka moqtahay barawada inta magaalada Muqdisho dadkii sameyn jiray kabaha sameyn jiray boorsooyinka sameyn jiray ee xamar weyne iyo shangaani iyo ku dhaqana hadii Sooma iyo dadkii dharka xamar ku dhex sameyn jiray hadii Soomaaliya ay aqladooda dhiirigelin lahayd ka margelin sameyn lahayd maanta Soomaaliya warshad kabaha waxay noqon lahaayeen warshadaha wala ka furmin yani adduunka Soomaaliya haysan lahayd ويد سامي ودم بيستن وقول ما بيستن تكن نضد أبي يقانو بيحنو ولقوا تاريخيا سودو وحيسميني ولا يابجي مركا قبل ما كل اللي هنا حتى قف أن قبل لهين هي قبل وصلنا ويصير قف على طريقة وموقتها هي وصلنا كراقب تذكر مثلا يكون حماتا قالوا يهن من دامه إن الصومال مقعد ويا يكون دمك أصلي والحضر يصير ليس ده جاهليان يقف كان حضر يا جاهلة مركا هو تذكر أصلي تقول يعني كان كهذا دون عارف أو ده كلي طبعا يكون ده جراد بيلي وده جراد from كسمايو إلى العدو ده خلاص region جارة ونحتملنا هنا أو جري ليس region sociological region أو يك ليس أو جارة أو ليس يعني ما شيء جايد من الجارة ليس قبل يعني سوالف وصلنا كذا قبل كده ليس أنا أمضى كل نفس مركز ثاني يك كلي كهذا دون ده كلي أنا تكور بودي مايو ليس أنا ما نتنا أوضاع كهذا هو قبل كأوضاع وقبل غني وقبل مدني وقبل بترول وقبل بيل وقبل ماشي وبدوي وهو البلد هو إن هو هادونك ما أنت قبل الله يبقى إن هادونك أردن بكذا أو تفهم بكذا لو تفهم هي هادونك من هو اللي بقى وهو دخلوا هو نقول مستقبل ويبدأ يربطوا وضع نقول ووضع اللي بقى ما أنت بدالية إنه سمسته أو موقت الدكتور سمسته أو يربطوا سأدونك ولا ما تفهمي بس ده هو اللي بدي وحليه قيمة كفر ده كسب كفر ده بما أنت اللي يلاحظه تلك إثيوبيا لبع مثلا وما أنت بلو اللي يلاحظه لا لبع مثلا تقارهان ماشي أنا صومالي العجيبة كذا بعدين $100 أو كل دروك بحي ليس خرج هو يركب بحلا وقوم الكأوضة وسيلة إعلام وهيوي بدك كذا عالمي اللي رسمين إثيوبيا مالي هو وين ربما وذكره ترينكي كنت المال من غراي من اللي المال من غراي لو سو مالون لانه تبع شركه انت قفك فكراين هو ها مستقبل قبل البترول صباح انا ميركا لا اسكو راح لا سميو ليس نوبك ورتا الله marka qofku dadku wax iyaguna ka faa'iidi karaan dadkan area-dan dhan ku faa'iidan karo oo warshadayn keeni karta ugu walba keeni karta Soomaaliya ka xasido way arki weydo gobolkan way wax weeyaan markii xorriyadda ay noqdeen 1960 magaalada Saylac hoos u sii socotay
afartan sano markaa ka horbayna iyadoo cirka maraysa hoos u dhacday oo markaa bilaamaysa boora ma jirin marka lixdankii Soomaali way kartay markaa inay kor soo qaadan tahay magaalada sayr cilaad oo hayo oo dekada ka samayso way kartay faydina Soomaali way maanta waxaan leeyahay qaabkii dhacaba maanta sida laftigeed haddii la siinayo apology wooy وين سيل علاها يروحية لكده وين عالم international laga sameeyo boorama laga sameeyo international airport يقول كوردم يقولون في مال والبا لا بيسوي وايو يدوم ما تختم كتاب ما بيسوي كردين كرام وقت بيسوي كردين ليس قف ربا إنه ضد كان أدون صبر وقف كان ربا إنه أنا كرام بيسوي قف ربا إنه وضد كسمهم عليه إن بس كان كجرا إلا سينا حيو يكين يد اللي قد يقول يوقف لي حرام taas Soomaalina keenay mayso Soomaalina way kala fogeeyeen dadka awdalna de aakhirka mid gobolada kale lagu wada tacadiyayo dhan aakhirka iyo Soomaalina way dhici oo meesha doonay marka dhacay marka waxaan leeyahay awdal Soomaaliba u baahan awdal Soomaali uma baahan qofkii mudinay dadka reer awdal boqolnimo Soomaalinimada ka taho gobolka awdal Soomaalinimo uma baahna Soomaalidu way fiicantay Soomaalidu wax kasta ay tahay laysa awdal hadii Soomaali mudaysa inay awdal Soomaali ma baahan واي واحد كقط تنجرب واش وانت واحد يسومالي خسارة من واحد فائدة مجد يدو هو أوضع أين واحد فائدة سومالي كين خسارة مويان حتى نقول سومالي بان ولي وحنا مسنا أو قرات كي ونوشة جاية إنه إذا جبك في عين هاي تفرارو قرات كي ونوشة جاية إن جيس أفريقيا بالنسبة للسومالي أو يعني إن درس سياسية ما ليس دغالة سياسية الناس كسودوانية يجوب يسومالي وهبري هوري كرود في الحلول الجيران ما أنت فكر كيس بدلي والصومال إثيوبيا كيس بدلي الصومال بالنسبة للشيء والصومال اللي لفت كده بدأ سوق قوية أو الناس النحين مركب يعني مثلا اسمه جنس بان يسوع يعني واحد من إنه نجيس أدونك ما أنت ما أنا كشغلنا مرينا كا وهذا كسمينا كل شغلنا سماه كساوي لما تنجز يدك خلص أنا بس نجز حتى لو اسمه الطبي هنا واحد ولا قصني رجيس كان أفريقيا إن ولي خاصة قبل كأوضل توبيا مالي هو وين أبي كده جايه قبل كان أوضل أنت عن حرية اللقادن ما له هو وين هي مخاطر طبيعية حرية كده وفرنا تقول بعد تريك جيك ما لها صوب ما كورة فرنا إلى سبنا من هو كورة فرنا كله ما أنت إن ضد كده كله سيدي هرب ما أردت أسمع يعني معناها أسمع كمان السكيل لوري الصون نقول ما يسون نرخنا الصون نقول وايد خسارة الدوار كاون صوم على نوع خسارة تودي كنا خسارة آخر واصل بعضين توبيا الصومالي ولا بعد الوجود وهذا يصير صدام يعني إركتيك كان مر والله بتعاس اللي رجلني قبل كان أوضل نوع إنه لبى عمسري توبيا وإنه لبى عمسري جيبوتي ويدخل جيبوتي كل دقني تكون أوضل كل دقني وصلت يوم رود إكفرس سمستين برا جنبي ليس وصلت يوم مركا إن هذا الكيو سوقنا نذيا وحن له دول صومالية هدي أي ربطه صومالي إني حاجته هدي أي ربطه صومالي إن أي دي وصل نقطة شرفت دي وصل نقطة إن وإن الحقيقة اللي واجه وين لقى اللي حن وقوي قبائل النور وبالله ذيك كلامها هي قبائل النور ضمبا مذاك كستور ومشرعيه يبقى أن كستور اللي هو جوينا يوحنا يجوا الرسول بلا بالله يعدو لا يمشي وش يصير منها إن لا حتى ودقروا قد أنت أقول دقني دي لقى الله يقول وين جد وجوان وما تصمني في الجوان صوب يصور لو غير ما هو بطل مش تذكر كونفرت الجوية حمر الجوية تذكر أول الجوية صافي كهذا الصومالي بكهذا تذكر أول مطعمنا قف كله يحمر أول وتجيبان النقط قبائل كافي دقن أول وضري تصبي حمر ولا حاجة أخرى مطعم من مصدقين المخلوقين يعلو بعمل عقلية هم وحوجة بعدين مجرد كرر كرر هم وحوجة بعدين مجرد الصومالي هم الصومالي قالوا والله صوب يصلون يصيروا قفي ربنا كانوا يحكوا بيجوا حمر جيو يعني حمر وكل جلسوا هو خلق فكان والله ريال وما سنتين إن كلنا وان حلا يا ودي جوجنا وهذا الكيجا إن وحيانا يوم سودينيا مرة إن وحنا سودي إن ويكسر صعدا إن بلدك عن كل صوت أنا وأنا هذا marka qofkii habkan kuliga qaldan yahay la isku soo xidhay dadka ma qof loo soo qabanayo YouTube waan keegay oo xogaa la soo xidhay qaldan I don't know wii soo bixilaayay marka kulli qofkii macluumaad hayay soo diro waan lagu soo xidhaya in afkaartina waan tusbal isku darsan in ma awdal ka timo oo marka aan bashay
ama gobol soomaaliya oo kale afkaarta wayna wadaagnaa ana sheekaysanaa qarankan soomaaliyeedna dadkeena dibadaha jooga iyo dadka gudaha jooga iyo meel walba jooga doon kooda hadli kartaa weliba dadka dibadaha jooga sibay xor u yihiin oo yakii maanta hadal laguma xidho hadalna laguma qabsanayo hadday hadlaan oo wadana xoray joogaan oo dimuqraadiya marka afkaarta waynu soo wadaarsanaa marka walaalayaal waad mahadsantihiin sidaa iyo nabadgelyo